Partnership International Film School of Vancouver Canada dadkan waxay leeyihiin partnership marka inuu dalka dalkooda dibadiisa uu yahay ma garanayo. VFS waa shirkadda ugu weyn oo sameysa 3D animation sida gameka ama filmada kartoonka oo kale. marka waxaa halkan ku qoran application-ka waxaa la furay 19 Agoosto waqti yar ee furneyd. halkan markaa maris apply here ama I want to apply ku taal. halkan apply here aad taabanaysaa. apply here markaa tagto apply now maxaa halkan ku yaala Vancouver film detailskina akhrisida scholarship-kan horta muxuu yahay. Vancouver iskuulka filimada sameeya ayaa wuxuu ku caawinayaa si degdeg ah dadka la xirfadaha oo alla kumaneystay ama creativity ama hal abuurka leh ee dunida ka jira si ay uga faa'iideystaan deeqdan waxbarasho. waa 1 sano oo degdeg lagu barayo dadka global ranked animation. maxaa ku diyaara 100% waa laga dhiibayaa 4.75% tuition-ka 75% 6% tuition qaar basi waay. multiple partial scholarship from funding pool 100 kuna u taal dadka funding pool-ka inta la aruuriyo waay. apply now waa leedahay. apply now markaa dhahdo halkaas magacaaga gelinaysaa. hadda name-kaaga Yasmin oo kale first name halkaas gelinaysaa Yasmin. aniga magaca wawihii waa Maxamuud. this field is required lagu leeyahay soo ma aragtid. dhalashadaada halkaas gelinaysaa 13 kasoo qaad inaad dhalatay 6 kasoo qaad inaad dhalatay 26 June 1960 ama 71 markaa gelisi emailkaaga halkaas ku celinay phone numberkaaga addresskaaga halkaas gelinaysaa. zip code halkaas country-ga Canada miya maya Soomaaliya hadday ku jirtaa eegayna nasiibaa leedihiin hadday Soomaaliya ku jirta halkan because dunida dhan aan siinaynaa ay dhaheen. halkaana hoos u soconaysaa laakiin naftaada qiyaano waa qofka Ingiriiska yaqaan because course-ka aniga hadda kor isku day aad u adag yahay. okay Soomaaliya soo ma aragtaan Soomaaliya prefer program ka rabtaa 3D animation marta animation concept art marta classic animation waxaa la filmadii hore oo kartoonka ahaa ama wixii hore oo classic ahaa oo caanka ah. marka hadda adduunyada waxaa ka socda 3D animation visual effect-ga VFS-ka video submission link the video posted on YouTube or danta halkan YouTube ka soo baxso ayaa la yiri waxa aad jeceshahay inaad baratid. YouTube waxa ku soo aragtay VFS aad gelinaysaa. VFS ama 3D animation visual effect videoga aad la dhacdo linkigiisa halkan soo gali oo aad rabto inaad barato. documentigaaga soo upload garee. ID-gaaga oo passport-kaaga ah. ESL test result transcript laga rabaa waa wax kasto scholarship ka transcript recommendation letter waxa la idin sheegay qof walba oo dugsi sare ka soo baxay intaan u baahan yahay meel walba shuruudahan ku xiris because waa in lagu yaqaanaa qofka tahay high school ma ka soo baxday college miss university iskuulka ka soo baxday ama university-ga ka soo baxday location-ka kaga soo baxay sanadkee dhigatay degree heshay dugsi sare miya bachelor miya creative submission link waxa aad isku dayday ma jiraan halkan soo dhig. Google ama Dropbox geysaa wala documentiga soo upload gareynaysid. personal submission 10 xarfood ku soo koob ama in ka yar waxa ay tahay riyadaada inaad ka gaarto waxbarashadan ama project-gan 3D-ga aad baranaysid maxaa rabtaa inaad sameeyo. waxaan rabaa inaad sameeyo ardayda ilmaha Soomaaliyeed ayaan rabaa inaan u sameeyo kartoon waxbarasho maskaxdooda lagu kobcinayo. waxaan rabaa inaan Soomaalida maadaama dagaal ay ku dhaceen tribal
conflictiga khasaaruhu leeyahay ayaan rabaa inaan kartuunka suubiyo. waxaas aad ujeedadaada isku qoray inta 100 xarfood kusoo qoraa lagu yiri scholarshipkan sidoo kaaga caawinaya horumarkaaga ama xirfadda aad rabto inaad ku takhasusto creative media arts. Vancouver waa meel aad u qurux badan oo wax laga baran karo, yacni meelaha wax laga barto ugu fiican oo diyaarisa dadka horumarkooda u diyaarisa. markaa sidee rabtaa inaa ugu noolaad 12 bilood aad baranaysid living expenses kan maxaa rabtaa inaa submit dhehaysaa. intaasaan uga tegayaa, inta kale si akhrista. halkan waxaa waa inaa akhrisataa scholarship kastana waa lamid. yaa scholarship kan u leh xaq in la siiyo eligible yaa ah. age restrictions ma jiro, da loo diidaa miyaa jirto. scholarship kan muxuu iga cover gareynaa, sideen se rabaa aniga inaa oo apply garay ama codsado, xageen ka heli karaa warbixino ku saabsan visual effect VFS ka programmadooda admissionka ah, yaan kala xiriiri karaa. hadduu luuqadda ingiriiska aysan ahayn luuqada u dhalatay ama ay dalkaaga looga hadlo oo aan luuqadda ingiriis ku hadlin weli ma soo codsan karaa. halkan muhiim waa akhrinaysaa. sidaas intaasaa uga baxa, wax badan ma soo koobi karo. waa mahadsantiin. isku day meel walba derbi kasta waa inaa isku qaadaa. dunidana maskaxdaada ha u furnaato. waxyaabo badan oo la bartaa jira dunida oo lacag badan hadda lagu qaato. waa idin salaamayaa.